ilaa maalinan ogahay saasaan u dhinac taaganahay sidaasaan u dhinac taaganahay wax yar baan rabaa marka inaan dib ugu noqdo maxaa aniga igu kalifay dawladda inaan taageero anigoo full time shaqaynayo anigoo full time school aadayo anigoo waqti u haynin maxaa igu kalifay wax yar baan idinka sheegi doonaa laakiinse waxa kaloo aan rabaa inaan in yar idinka sheego taa waan soo noqon doonaa wax yar baan rabaa inaan idinka sheego dadka nabad iyo nolol diidka ah in ay xumaanta mooyaane wanaag indhahoodu qabanin miyaad aragteen qof dawladda ka soo horjeeda ama nabad iyo nolol diid ah oo amaanaya ciidamada qabtay lacagta 10 milyan ee laga soo dejiyay airportka hal shakhsi oo dawladda ku kacsanaa hal shakhsi oo ku amaanaya ma aragteen kunkiina qof ay daawanaysa hal shakhsi oo amaanaya miyaad aragteen waa maya halka maxaa kaaga cad marka halka maxaa kaaga cad nabad iyo nolol diid shaydaanka wadadii u jeexay bay sitaan wadadii shaydaanku u jeexay bay marayaan meel kalena ma arki karaan indha kala malaha dawladdan iyay jirin corruption ku ha socdo maxay corruption-ka ula dagaalamaysaa naciibkoodu waa maxaa corruption-ka loo joojinaya corruption bay doonayaan dawlad la'aan bay doonayaan dhiig daatay doonayaan xumaan bay doonayaan wanaag dhan indhahooda ma qabtaan maxay u amaani waayeen maxay abaalmarin xitaa kaliya dad sharaf leh bay iska dhigayaan ayaga dad wanaag doonaya magaca ay isticmaalaan Soomaalinimadii way baabaaday Soomaalinimadii khayr iyo farmaajo meel uga dhacay Soomaalinimadii iyo dawladnimadii sidaan idinka Soomaalinimo iyo wanaag hadaa doonaysaan ciidanka ma siisaan shilin ma siisaan akoonkooda ku ridaan waa maya ciidanka shaqadii ay qabteen ma ku amaanteen kaliya ma tirahdeen braawo shaqadaasi waa shaqo loo baahnaa ciidanka waxaas loo sameeyo weynaan sidaa yeelaa weynaan ciidanka taageerna iyagoo dhahaya wali ma aragteen maya kuma arkaysid meel ay ku soo qorayaan xitaa ma arkaysid akoontiyadan ciidanka lacag loogu daro waa maya waa jiroolayaal waa shayaadiin weeyaan waa shayaadiin waxaan soo noqonayaa marka waxaan soo noqonayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo noqonaya oo dadkana ay ku waashan qabaa'iladooda oo mar walba ay yiraahdaan qabiilkiisa taageera qabiil baa lagu taageeraa oo sidaad hore uga maqasheen aamina muuse horna aan idinku sheegay ra'iisul wasaaraha hal shakhsi baan ka garanaya baan mulanaya waxa isku qabiil yihiin maalmihii uu cusbaa uu taageeri jiray nabad iyo nolol diidkii waxay ku bilaabeen qabyaaladaysta tahay because ra'iisul wasaaraha isku qabiil baatiin sidaa awgeed wad amaanaysa Soomaha wiilkii isla markiiba waa la kala fureeyay waxa la yiri dawladda isagoo ra'iisul wasaarihii iyo dawladdii iyo xukuumaddiiba aflagaadeeniyo soo gali war maxaa kugu dhacay dadkii baa waxay igu yiraahdeen qabyaaladaysta tahay oo marka maxaa ku helay dewan mucaaradaya markaas halka shakhsi baan arkaa wax ku qabiilka madaxweynaha Soomaha ma ahan dad siyaasadeedba ma galaan siyaasad ma taageeraan ma ka soo horka jeedaan wadaska aamusan oo cool u degan runta markaan idin sheego dadka taageersan madaxweynaha iyo dadka taageersan ra'iisul wasaaraha waa dad u buka oo u baahi qaba nabad iyo nolol bay doonayaan qof kasta oo nabad iyo nolol doonayaan madaxweynahana uu doonayo ra'iisul wasaarahana uu doonayo siyaasadooda caalamka waan aragnay maanta halka sano ee ay dawladdu jirto bil walba ama 2 bilood oo kasta caalamka sharaf ayaan ka soo hoynaa ka soo bilow ilaa maalintii la doortay madaxweynaha ilaa maanta maalin walba wax caalamku uu soo fiiriyo mooyaan wax kale oo Soomaaliya hoos sharafteeda u dhigaya ma aysan sameyn laakiin se nabad iyo nolol diid ma sheegaan waxaas ma sheegaan ma ka hadlaan way daboolayaan waxaan maqli jiray habar dhali weeda aleela ku waalatay markaad maanta tiraahdo ma sha Allah madaxweynaha Soomaaliya dhexdhexaad wuxuu ka noqday dalalka khaliijka wuxuuna diiday lacag 80 milyan oo dollar qalbi dhagax buu dhiibay haye maanta waxaa la laaluushay waxay dawladdu joojisay in la qaato berberada ka deediyo way ka hadasho maya qalbi dhagax buu dhiibay ciidanka Soomaaliya maanta waxay iska diideen laaluush 10 milyan oo dollar ayay ka qabteen airportka laaluushna way diideen qalbi dhagax buu dhiibay waxaan maqli jiray abar dhali weeda aleela ku waalad qalbi dhagax waxa dhiibay waa nabad iyo nolol diida farmaajana maaha khayrana maaha farmaajo khayra waa kuwa dalka u soo halgamay weeyaan sharaftiisa kor u qaaday weeyaan Afrika maanta waan ka muuqanaynaa maalin dhow laakiin se dadka sharaftooda iyo karaamadooda ku jiiday dhulka aamina muuse weheliya ugu horeysan waxaan leeyahay wali bilaadanku uu qaldamaa kuguma fogaanayo bilaadanku uu qaldamaa qof bilaadan oo aan qalad ka dhicin ma jiro wuuna ka noqon karaa qof kasta bilaadan qaldama ilaahina uu qofur raxiim bilaadanka Soomaalidana waa dad qalbi xaaran oo inay ka cafinayaan marka qofku waxa fiican markuu qaldamo
inuu qaladkiisii kasoo noqdo. cali xaraarina waxaan leeyahay kaftankaaga dad badan baa jeclaa runtii oo ku taxnaa oo daawan jiray, laakiinse maanta wallaahi waxaa kugu dhici doonta cidina kaftankayga ma daawanayso, cidna waxuma gudbin karaysid, waayo wadada aad ku socotaa wadadii Aamina Muuse Weheliyo. waa aniga BBC usoo shaqeeyay khayra, waa aniga si lacag aan kugu ammaano maya markuu ku yirina wad caayaysaa, wax soconaya maaha taasi. bini'aadanku maanta indhahiisa iyo dhigiisuba furan wax ka qarsoonina ma jiran, marka iska jooji. adigana waxaan leeyahay bartaa ku jooji. haddaadan bartaa ku joojin sharaftaadii dhulka ayay ku dhacday, sharaftaadii dhulka ayay ku dhacday. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo noqonaya wada shaqayntooda in badan waxaa lagu soo celceliyaa madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu way wada shaqaynayaan, ama bari ka maalin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ana taageerayso bari hadii la rida ka waran lama ridayo 4 sanana way isla dhamaysanayaan. cidii la shaqayn weyda oo siyaasadooda ku shaqayn weydana wadada ku qulqul weeyaan, wadada ku qulqul. madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dib idinku celinaya waxay galeen ballan iyo axdi maalintii uu soo doortay ra'iisul wasaaraha. ballan iyo axdiga ay kala qaateen dad baa waxay leeyihiin malaa waxa la yiri aan wada shaqayno, heshiiskeenaas aan ku wada shaqayno, dad wada isfahma aan noqono. bini'aadanku waa carab iyo labadaan ba isku dhow oo way isqaniina. bini'aadanku khasab way isku dhacayaan. dad waxay aaminsan sanadka iyo dhowrka bilood ay jireen inaanay hal maalin isku dhacin. waa isku dhaceen, aan idin sheegaya waa isku dhaceen. bini'aadanku waa isku dhacaa, laakiinse maxaa hor yaala? ballan iyo axdi iyo warqad qoran baa hortaala. mar kasta oo khilaaf yar yimaado warqadoodii iyo heshiiskii ay kala saxeexdeen ayay dib ugu noqdaan. maxaynu ku heshiinay? maxaynu dadka ka ballan qaadnay? qofku sidiisaba waxa fiican inuu ballanta ilaaliyo. qof kastoo iimaan lena waa inuu ballanta ilaaliyo. marka waxay sameeyeen oo kaleeto maalin walba ra'iisul wasaaruhu marka uu soo kaco xafiiskiisa oo saa uga soo baxo shaqada uu galayo 8 subaxnimo wuxuu istaagaa xafiiska madaxweynaha oo uusan la kulmin ra'iisul wasaaru talaabo ma qaado, ma booqdo wasaarad, ma fiiriyo meel kale. sidaas uu aroortii uga soo baxo xafiiskiisa wuxuu tagaa xafiiska madaxweynaha. madaxweyne maxaa maanta inoo horyaala? dad sidaa u wada shaqaynaya micnaheedu waxay tahay teamwork. ka waran haddii ra'iisul wasaaruhu aroortii uu dhinaciisa u fooftago, madaxweynuhuna dhinaciisa u fooftago, wada shaqayn ma jirto. heshiis waa la yahay laakiin wada shaqayn ma jirto. heshiisku marka kaliya ma aha aan ku heshiino inaynan iskhilaafin, maya. aroortii ra'iisul wasaaruhu markuu sidaa uga soo kaco xafiiskiisa waa inuu tagaa xafiiska madaxweynaha, waa inuu weydiiyo maxaa maanta kuu qorshaysan, aniga waxaan iyo waxaan ay horyaala, adigana waxaan iyo waxaan ku horyaala, adigu waa inaad qaybta qaadataa, aniguna waa inaan qaybta qaataa. hebel waa in maanta la wacaa, dalkaas waa in maanta lala hadlaa, dalkaa waa in maanta hebel loo diraa, dalkaa waa in hebel la hadlaa. marka team wada shaqayn iyo wada jir, yacni waxyaabaha shaqadoodu ay u noqotay hal wado oo lagu daba tukan karo, qof kastana uu fahmi karo oo uu la shaqayn karo. nagu sababtay annaga inaan taageerno habeen iyo maalin aan u taagnaano waxaa ka mid ah 2 qof oo sidaa ugu shaqaynaya dalkooda, mushaaraadkooda ku bixinaya dadkooda. qofkii dhibaataysan madaxweynuhu waa kii 100 qof oo dhibaataysan xaalad caafimaad mushaarkiisa ku geynaya dhakhtar. ra'iisul wasaaruhuna waa kii 100 arday oo iska bixin kari waayay mushaaraadkii iska bixin kari waayay fiigii iskuulka isagu uu kaga bixiyay mushaarkiisa. idinkana waxaad soo taagan tihiin madaxweynuhu waa corruptionist, ra'iisul wasaaruhu waa sidan dalbay iibsanayaan gaas bay waxay ugu badan ee ra'iisul wasaaraha aad ku eedaysaan wax kale ma waxa weeyaan Som Oil and Gas buu shaqeeyaa. yes wuu shaqeeyaa Som Oil and Gas. wuxuu ugu shaqeeyaa isagu wuxuu ahaa qof shaqaysta oo ka madax bannaan Soomaaliya. Som Oil and Gas markuu shaqeynayay $2 milyan oo share ah ayuu ka tanaasulay maalintii loo doortay ra'iisul wasaaraha. Som Oil and Gas waxay tiri $2 milyan haddaad doonayso waa inaad ka sii mid ahaato shirkadeena. shirkadii markii dalkiisa inuu u shaqeeyo marka iyo inuu $2 milyan uu qaato waxa kala qiimo badnaatay inuu dalkiisa u shaqeeyo. habeenkii ma seexdo, maalinkiina waa taagan yahay. madaxweynahana sidaas la mid ah ka taali. maxaad uga abaal gudaan marka idinku cay, habaar, nacayb, xumaan? abaal malihidin nabadiyo nolol diidow, abaal malihidin. waxaadna tihiin dad wadadii shaydaan ku jeexay sidaa u sii haya
wadadii shaydaanku jeexay dadka nabad iyo nolol waxaan rabaa marka barnaamijkan inay sheer gareeyaan nabad iyo nolol ummadda Soomaaliyeed maanta haddaan halkaas balbari baan idiin soo qori doonaa nabad iyo nolol diid nabad iyo nolol diid waa arki doonaa inta badata isla markiiba waxaad arkaysaa yacni nabad iyo nolol diid waxay noqdeen shaydaan waswisay iyo in yaro amarkiisa qaadatay dadka mararka qaarkood iyadoo qaybta xumin sarreyso ayaa waxay ku dhacaan shabaqyada shaydaan waswisay aamina muuse wehelay iyadoo qaybta xumin sarreyso wanaagay dadka qaar marba qaybta xumin kor martaa marka iyadoo qaybtii xumeyd sarreyso ayaa waxay hal mar aaday groupkii shaydaan waswisay laakiin se weli toole waxaan leenahay oo ku furan tahay wadada toobada weli ku furan waxaan rabaa kale inaan u hambaliyeeyo ciidanka Soomaaliyeed mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ayaan u hambaliyeynaya waxaan leeyahay shaqada wanaagsan ay qabatay waxa horta mudnaanteeda iyo hambaliyeeda koobaad iskale madaxweynaha waxa mudnaanteeda iyo hambaliyeeda labaad iskale Turkiga inta ka bacdina waxa iskale taliyaasha ciidanka nisa ayaa iskale marka waxaan idin sheegayaa haddii aysan ciidankaasi haysanin moraal haddii aysan haysanin ballanqaad haddii aysan haysanin niyad dhis iyo barbar istaaga madaxweynaha ma aysan sameeyeen waxa ay maanta sameeyeen ma aysan sameeyeen marka hambaliyada koobaad madaxweynaha ayaa iskale talabaadna waxa iskale ciidanka nisana waxaan mar walba aan ku celcelinayaa mar kasta horta akoonka ciidanku waa ku jira Facebook qof kasto inaga midna wuu ogyahay wuu arkaa qof kasto inaga midna wuu ogyahay wuu arkaa si kasta oo sahlan baad ugu diri kartaa mobile baad ka diri kartaa xawaalad baad ka diri kartaa qof kasta oo inaga mida waa haddii aad $20 bil walba ku darsato haddii aad $10 ku darsato haddii aad $5 ku darsato waxaad ka mid tahay qof u halgamay dalkiisa ayaad ka mid tahay adduunka iyo aakhiro labadaba waad ku faa'iideysaa qof kasta oo inaga mida ma uusan waayin qof kasta oo awoodi karaya qof kasta oo shaqo haysta wuu awoodi karaya ha ku diro akoonka taakulaynta ciidanka dhowr jeer horaan soo sheer gareeyay haddana waan idin ku celin doonaa intiina hadda ku jirta $10 haddaad dirtaan waxay u noqon doontaa mushahar intaas oo askarta waxa ay qabatay wax caadi ama ah adduunyadii oo dhan ayaa ka faaloonaysa sidee bay ku dhacday lacagta intaas la eg ciidan masaakiin oo Afrikaan ah dalkiisu u burbursanaa 30 sano ku dhawaad in lacagta inta leeg diidaan laakiin se sharaf iyo karaamo ay noo tahay aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin ciidankeena ilaahay ha shafro ilaahay ha karaameeyo ilaahay ummadda karaamadeedii ha u soo celiyo aamiin aad iyo aad baan idin salaamay inaan ku daaho uma aanan soo gelin waxaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo qolkii qooto intaydan ka wada bixin qolkii qooto الله maalin walba waxbaad ogaanaysaa waan idin sheegay waad aragteen baan u maleynayaa dhamaantiin intiina page-ka ku jirta u badantiin barnaamijka ka diyaariyay waan aragtay qaybta ugu sarreyso saaran yahay qolkaasi waxa saaxiib la ahaa ama member ka ahaa 500,000 oo qof dadka badan 500,000 ee qof yani waa guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook intooda badani way ku jireen siday member uga noqdeen lama garanayo I believe marka in qaab ay isticmaaleen uu jiro oo dadkii hal mar member looga wada dhigayo oo dad aanan member ka noqon ama aan join noqon ay isku jiraan waxa marka ogaaday Muuse Bixi iyo groupkiisu inay group ka sameysteen groupka Muuse Bixi u jibeysan la yiraahdo jeegaanta before wallahi waxaan ku fikrayay qofka iskale page-kan ama groupkan sameeyay qof Soomaali ama aha amxaar weeyaan asdahay waxaan islahaa ama waa amxaar Soomaaliya ku dhex jiro oo af Soomaaligiisu biyur yahay oo af Soomaali fiican bartay ama waa qof amxaaradu galatay laakiin si dubka Soomaali ka ah wallahi page-ka waad la aragteen waxa lagu qorayna waad aragteen markaan ka hadlay ummadda uga digay ciyaal Muuse Bixi baa safii soo galay page-kayga maxaad ka rabtaa boqolaal message ba hal mar soo dhacay cajiib aniga waan qaadan waayay war page-ka Muuse Bixi baa iskale mise Muuse baa arminka ahaa wallahi waan yaabay inaan been idin sheegaynin xitaa commentiga waad ka fiirin kartaan qaybtiisa message-ka inta la ii soo diray ee group Muuse Bixi ah ama group jeegana tira iyo xadi ma laha wad yaabaysaa marka waan qaadan kari waayay
qabaa'ilada Soomaaliyeed sida loogu aflagaadeynay sida madaxa la isugu gelinay sida la isugu habaaray sida loogu habaarayay Muqdisho sida qaraxyada Soomaali loogu ducaynay waxaas oo dhan page-kii lagu soo qorayay ama group-kii lagu soo qorayay ciyaal Muuse Bixi baa gacanta ku hayay idinkana waad ku jirtaano waad ka comment gareynaysaan waxa rabtaan baad sheegaysaan qabiilka doontaan baad caayisaan waxa meesha ku qoraa wax maba aha qabiilada aad moodaysaan idinkum baa sida fooda la isku gelinaya wax walba inaad ka fiirsato ayaa fiican waxa aad arkaysana sidaad u arkaysan maahay waa si kale ogow hal la iska ilaaliyo gruubada noocaas oo kala ama maxaara ha lahaato ama ajnabi ha lahaado ama dalay ha lahaato gruubyada noocaas oo kala ee Soomaali sidan iyo reer hebel sidan iyo xitaa gruubyo qarba qabiilo magacyadooda leh laakiin se been aan qabiiladaasi lahayn oo lagu caaya intuu qabiil magaciisa qaato qabiil kale caayo hadhow ta looranaya qabiil hebel buu necab yahay qabiiladu mal raba in dadka loogu soo celiyo marka hal la iska ilaaliyo group qooto iyo group jinni oo dhan xaraamiin baa leh page-kaygaadna ku arkaysaan qaabka riboodka looga bixiyo waa qaab aad u fudud 10 qof oo kaliya haday ka bixisana hawada ayuu ka baxaya marka waxyaabaha sunta noocaasa ee dadka ku dhex jirta hal la iska saaro inta soo barabay maanta inaan idin la wadaago nabad iyo nolol waxaan rabaa hal dardaarana inaan siiyo nabad iyo nolol waxaan doonayaa hal dardaarana inaan siiyo halka dardaaranka ah aan siinaya wuxuu yahay dawladdan jilicsan ee cid waliba ay soo handadayso ee aad arkaysaan wax inaga qarsooni walaalayaal maanta ma jirto wax inaga qarsooni maanta ma jirto wax walba indhaheena shanaan ku aragnaa inaga ayaa la inagu fiirinayaa damiirkeena iyo dadnimadeena iyo sidaan uga falcelino iyo sidaan u aragno lacagaha la inagu farqayna waad arkaysaan dadkeena gudaha ku jiray ee iibsana waad arkaysaan dadkeena la wada duufsanayana waad arkaysaan kuweeni ugu roonroona aan isdhahaynay aqli iyo waxba ku dambeeyay garasho iyo garaad ee aan islahayn kuwani dawladihii dhexena waxbay ka soo ahaayeen ama xoogaa waxay haystaan magac iyo maamuus bay dadka ku dhex leeyihiin ama dawladii iyo canshuurtii Soomaali laga qaadi jiray baa wax lagu soo barayo iskuuladii bay ka soo baxeen la foolo iyo Soomaaliya inay maanta sidaas u hadlayaan oo ay fikradii shaydaan wasuusay ku shaqeynayaan horta waa ayaan daro laakiin dadka Soomaaliyeed damiirkoodu ma uusan wada dhiman dadka Soomaaliyeed damiirkoodu ma uusan wada dhiman waa nool yahay waa qoyanahay waana aragnaa cadawgeena wadada uu noo soo marayo iyo lacagaha uu nagu bixinayo iyo sida uu doonayo inuu dhulka noola dhaco waan arkaynaa laakiin ha u malaynin qof wax soo ahaa ama qof baa magac lahaa ama qof baa meel ka hadli jiray baa waxa diiday ana waa diidaya taa iska ilaaba qofkan shaydaanku wuu qaadan karaa waxa ilaahay quraankiisa ku sheegay qof soo sameynaya amal wanaagsan maalintii uu dhimanayayna ilaahay wadada uu ka hufiyay marka bila aadanku waa daciif shaydaan baana qayb ka marka ha ku daysan in dadka noocaasa hana la ficiltaminina hana la caytaminina kaliya runta u sheega runta oo sheega runta markaad u sheegtaan qofku ilaahayna wuu soo hadeyn karaa haduu sida ku baxayana ilaahay naga xsaar baan leenahay oo ummadda ha dhaafiyo waa inta soo kaliya waxaan sameyn karnaa annaga mar kale ayaan ku celinayaa dadkina gadaal ka soo biiray dadku markay maqleen shaydaan wasuusay warkiisa oo ay yiraahdeen malaha dadkan amaanaya dawladda lacag baa la siiyaa waxay iska wada xaadiriyeen xafiiskii ra'iisul wasaaraha weyna ku soo hungoobeen danacay bay bilaabeen haddad ku soo hungowday alxamdulillah rabbil caalamiin horta ilaahay baan ka magan galay dawladdeena inaan lacag ku qaadano aniga iska hadlaya shakhsiyan anigu qof kale mas'uul ka mihi aniga ayaa iska hadlaya aniga oo ka tirsan dawladda Soomaaliya u shaqeynaya dawladda Soomaaliya anoo u shaqeynaya oo mushahari iigu gashan tahay diiwaanka bil walba inaan mushahar qaato ayaan lacag la'aan ku shaqeynay maantana aniga ayaa shaqeysta aniga ayayna isaaran tahay mas'uuliyada inaan anigu ugu daro laakiin dadka عيدا يربنتي وحبة تري ويدا حفيز كرئيسل وسارها العقد ودونتي كسو هنجوبي ما أنت إنا يرهدان عيال بالعقل بصيا وحن لنا هاي أفواجن بين بعض شيء يسان أف كنا أيضا قلوا عضو إلهي نون أجي هاي أننا ونس أجنا هنا نشلن قاعدة أفك الله أيضا قلوا عيا عدبنا دين سلام يا رمانتي